السلام عليكم soo dhawaada mar kale muuqaalkan kale maanta waxaynu ku eegi doonaa meesha ugu kulul adduunka oo ah saxara loo yaqaan Lat Desert kaas ku yaala dalka Iran ninkan ayaana maanta meesha soo booqanaya hadaba marka laga hadlayo saxarahan macquul ma ahayn qof walba iska gali karo sidii nooga muuqata boardkan ku yaala meesha laga galo ilaa uu kula socdo qof loo sharciyeeyay inuu dadka ka xeeyo oo meeshan geeyo kaliya iska gali kartid waayo meeshan markaad gasho waxa macquul ah inaad wax ku noqoto kuleyl dartii hadaba sida uu duubay qalabkan lagu xidhay satellite-ka ee cabira kuleylka dhulka waxa uu qabtay meesha ugu kulul adduunka inay tahay saxaraan ku yaala dalka Iran iyadoo temperature-ka ugu sareeyay ee meeshan laga qabtay uu gaadhay 70.7 degrees Celsius ama heerkulka badan 70 degree waqtigaas oo ahayd 2005 It is very hard to breathe here. I am actually very thirsty. As you see the red line of the thermal saxaraan hadaba dhankiisa waqooyi iyo dhankiisa koonfureed waxa u dhaxeeya 480 kilomitir masaafo gaadhaysa sidoo kale bari iyo galbeed distance-ka u dhaxeeyana waa 320 kilomitir saxaraan hadaba laftarkiisa waxa uu ka sii kooban yahay meelo si kala kulul oo waxa ku taala meesha laga diiwaangeliyay temperature-ka ugu sareeya ee 70 degree dheeraadka ah meeshan hadaba la iska moodanan waa meesha ugu kulul laakiin markii ay naasa cabirisay temperature-ka meeshan sanado kala duwan oo kala dambeeyay waxa laga diiwaangeliyay temperature-da ugu sareeya sida darteed ayaana loogu aqoonsaday inay tahay meesha ugu kulul adduunka iyadoo intaan muuqaalkan ku guda jirno aan arki doono dhacdooyin aan la yaabno hadaba magaalada ugu dambaysa ee saxraan laga galo ama u soo xigta ee lagu istaago waa magaalada shaqadeeda lagu magacaabo waana halka ay ka dhaqaaqi doonaan ninkan iyo dadka la socda sida imika weyne la wadaagayo temperature-ka meeshan waa iska caadi marka loo eegayo meesha la tagayo waana 70 degree waliba iyadoo ay u hadheen intaasoo kilomitir oo ay soconayaan oo saxaraan si dhex mari doonaan marba marka ka dambeysana heerkulku uu sii siyaadaya marka ay sida u soo dhaqaaqaan ragga hagaya sida ay tusayaan markan maadaama temperature-ku kor sii kacayo qaabkan ay adeegsadeen ee marada biyaha lagu qoynayo madaxa la saarnay ay tusayaan ninkan to reduce the temperature national air condition hadaba gaadhiga markay soo raacaan waxay ku qasban yihiin in meesha ay marayaan lala socdo oo GPS-kooda ay furanayaan waxaana dhaqdhaqaaqooda ama meesha ay marayaan la soconaya company waxaan ku shaqaystaa oo haddii hadhow ay wax kugu dhacaan si degdeg ah kuu soo gaadhaya saxaraani hadaba sidoo kale maaha meesha ugu kulul oo keliya laakiin waa meelaha ugu qallalan adduunka oo dhan maadaama roobka meeshan ku da'a uu aad u yar yahay inta yaray ku da'daana markaaba way uumi baxdaa kulaylka dartii hadaba markan halkan uu ninkan istaagay waa harooyinkan milixda noqday ee meeshan ku qalalay oo meelo fara badan oo saxaraan ka tirsan laga helayo sidoo kale hadaba dhanka kale si ay hore ugu sii socdaan waxay ku qasban yihiin naqaska taayirada gaadhiga ay wataan inay dhimaan They shouldn't burst under rough terrain conditions. We're just at the beginning of the road. iyagoo isla halkaasna ku cabiraya temperature-ka ciidda oo markan maraya 63 degree laakiin harka gaadhiga marka la soo galo ilaa 45 degree uu marayaa ninka gaadhiga wada markan sida aynu arkayno caagadan qabow ee biyaha wuxuu ku dulhayaa taleefankiisii oo haddii uu kululaado shaqada joojinaya intaa wixii ka dambeeyay hadaba waxay soo socdeen 2 saacadood waqti gaadhaya saxaraan dhexdiisa waxayna soo gaadheen bartanka saxaraha meeshan imika joogaana waa meesha ugu jooga hooseysa marka la eegayo saxaraan dhexdiisa sidoo kalena waa meesha labaad ee ugu kulul gaadhiga haddii aad ka degto 2 daqiiqo wax ka badan dibadda ma joogi kartid marka ninkani sida uu cabirayo waxa uu eegayaa temperature-ka dibadda 2 iyo barkii duurnimo ayna ku dhadhowdahay iyadoo thermometer-ka yar uu ku cabiraya uu sheegay dhowr jeer oo kala duwan temperature-ka la sareeya oo u dhaxeeya 66 ilaa 68 degree laakiin 2 daqiiqo kaliya markii uu dibadda joogay qalabkan uu shaqayn waayaba oo error ayuu soo saaray kulaylka dartii laakiin thermometer-kan yar ee kale ee dhulka lagu taagay ayaa isagu sheegaya 69 degree markana hadaba sidaynu arkayno ninkii gaadhiga ku waday ee hagayay wuxuu ka baqday in gaadhigu ciidda ka galo maadaama temperature-kuna aad u kulul yahay sidoo kale meeshana ciiddi saxaro ay taalo gaadhigu uu gelayaa sidaa darteed waa inaad iska ilaalisaa ood meelo bilaa ciida gaadhiga ku wadaa
ninkani qalabkii uu sitay oo dhan badankooda wuu istaagay oo labadan termometerina tusay uu sitaabo istaageen kaayara dhulka lagu taagay ayuu baa u shaqaynaya gaariga markaad saaran tahay daaqada haddaad furto hawada kuu soo gelaysa waa hawo ku leefisaba sidaa darteed waxaa kuu fiican inaana daaqada furinba sida aynu markan arkaynana ninkan uu adkaysan leeyahay oo xataa AC-gii gaariga gudihiisa ma shaqaynayo laydha haddaad siraada yara furan hawada baylkaaba ku leefisa I was thinking that I would be relaxed when I opened the window. But it is worse. It's like the hot air squeezing out through. xoogay haddaba markay soo yara socdeen gawaadhida ay wataan maadaama laba gaadhi yihiin gaadhigii ka horreeyey taayir ayaaba ka qarxay maadaama shaag uu aad u jilcay kulaylka dartii dhagaxan yar ayuu ku istaagay kadibna uu qarxay sidoo kalena kabaha ay xidhan yihiin raggani sidaan arkana way dhalaaleenba weliba waxaan oo dhan waxay dhacayaan iyagoon weli gaadhin meeshii ugu kululayd saxaraha sidii hore u cabiray temperatuurka dhulku waa 70 digrii buu marayaa This layer has slipped. The ground is about 70 degrees Celsius or 158 degrees Fahrenheit. When we are not filming, we protect. inta aanay waxba duubayn haddaba qalabkooda waxay ku dhex ridayaan ama kamaradaha uu sita ninkani tallaagadan yar ee ay sitaan waayo kamaradu kulaylkan ayay u adkaysan waayeen oo erarkan ayay soo saarayaan marba marka ka dambaysa sidoo kalena weliba teleefanada ay siteen laftirkoodu kulayl dartii ayay shaqayn waayeen ninkan inkastoo sita caagad weyn oo biyo ah laakiin haraadku marnaba kama baayo oo marba marka ka dambaysa caagadan ayuu cabayaa It is now 2:15 p.m. We are walking towards endless desert. Let's see how far we can walk. waqti xaadirkan iminka uu joogaa waa 2:50 daqiiqo oo duhurkiya waa xilliyada cadceedda ugu kululayd maadaama meesha uu tegayba inuu soo tijaabiyo kulaylka meeshan markan waxa uu dhaqaaqay inuu socdo ama meeshan uu dhex lugeeyo laakiin waxa ku adkaanaysaba inuu ciidda ku dul socdo maadaama kulaylku kabaha uga soo dhex baxayo weliba marka dambena waxaa isku dayaya inuu tijaabiyo bal harka marka uu dallaayadan isticmaalo temperatureku inta uu yahay laakiin intii hore marka hore uu sheegayay maba aha uu kasii batay Shadow here. In the shade near Toulouse, where there are fast blowing winds, we couldn't see the 52 degrees Celsius we saw under the sun 1 hour ago. You see that the temperature is now 47.3 degrees Celsius, 117 degrees Fahrenheit. But innocent wind. markana marka uu iska saaro waxyaabuu xidhnaa waxaa ku adkaanaysaba inuu xarko oo fallaadha cadceedda ka soo baxaya ayaa dhibayaba sidaa awgeed ayaan isku dayaya inuu muraayadan u xidho haddaba ku darso weli may gaadhin raggani meeshii ugu kululayd temperatuurka caadiga ee meeshu imika ay marayaan 56 digrii ayuu marayaa temperaturadii uu marka hore cabirayey ee uu ina tuseeyey may ahayn temperatuurka guud ee meesha ay joogaan laakiin dhulka ay marayaan temperatuurkiisa ayuu ahaa waqti xaadirkan temperatuurka ay ku sugan yihiin haddii inta ay sii dhaafto 56 wixii ka sarreeya ay noqoto waxaa adkaanaysa in qofku uu gacantiisa ku qabto waxyaaba birta ah sida tripodkan ay sitaan ee kamarada ay ku qabanayaan iyadoo sidoo kale waxyaaba ay sitaan qaar badan oo ka mid ay dhalaali karaan intaa wixii ka dambeeyey raggan waxaa ku soo dhacday dabayshan taasoo tilmaamaysa in wakhtiga habeenku soo dhawaaday iyadoo dabayshan ay isku bedeli kartaba ama markii dambe ay isku bedeshay dabaylaha waaweyn ee sandstormka la idhaahdo ee ciidda ay kugu soo qaadayso ama ay kugu soo kicinayso dabayshu haddaba dhanka kale waxaa la yaab sii noqonaysaba maadaama temperatuurka ama heerkulka dhulka ay ku taagan yihiin uu 70 digrii iyo dheeraad sii marayo haddii aad cuntada ku karsato caadi bay u karinaysaaba way kugu bislaynaysaa cuntada sida iminka raggan ay samaynayaan cuntadii ay siteen waxay dhigeen dhulka oo ciidan ayay ku aaseen The temperature of 70 degrees Celsius coming from the ground makes our meal ready. markiibana waxay bilaabeen inay cunaan markan meel yaro hadha ayay raadsadeen saddexdii barkii galabnimo ayayna ku dhadhowdahay ama ay maraysaaba waxayna sheegeen in enerjigoogii o dhan ay cadaydu ka qaadatay sidaa darteed ay nasanayaan oo cuntadan ay iska cunayaan waddanka yaraan laga cuno isagoo ninkani marka dambe isku dayay bal meeshii uu ka yimid inuu ku noqdo meeshuna maadaamay saxaro tahay raadkii wuu masaxmayba dhinaca ay ka yimaadeenna wuu garan leeyahay ilaa imika temperatuurka hoos buu yara dhacay maadaamay casar sii noqonayso 45 digrii buu imika marayaa saxara marka la eegayo meel kasta ama dhinac kastood eegtaa waa waddo maadaama ciiddu ku baahsan tahay dhinaca adeegtaba waxaad ka arkaysaa intaasoo waddo oo laga sii maray intaa wixii ka dambeeyey raggani way iskaga soo noqdeen oo waxay raadsadeen meel ay caawa seexdaan oo dabaylaha ay ugu hoydaan saxaraan bartankiisa weliba From the night storm. meeshan iminka soo galayna waa meel jooggeedu yara sarreeyo sidaa darteed waxay halka ka eegayeen qorraxda oo sii dhacaysa 7 barkii habeennimo dabayshiina way ka yaraatay sidoo kale heer kulkiina hoos ayuu uga yara dhacay habeenkii markii qorraxdu dhacday ninkan waxaa isku dayaya xayawaanada meesha ku nool bal inuu tijaabiyo oo laydhkan cad ayuu u dhigayaa isagoona arkaya xayawaano kala duwan oo meesha ku nool balse sida uu inala wadaagayo meesha ay berito la tegi doonaan oo ah meesha ugu kulul xayawaan iyo wax ku badbaadaa midna ma jiro Creature lives in Gondombaria, the hottest region we will reach tomorrow at noon. This tree is the Nepka tree. As you can see, there's a lot of sand on it. marka sida weegay waa geedka saxaraa bartankiisa ka baxa oo ka dulbaxay ciid fara badan maadaama markay dabeelaha ciidda ay soo dhacaan uu geedkani ciidda haysto xididadiisana uu ku adkaysto qaybtan imika ay ku socdaan waa qaybta ugu kulul xataa geelu meeshan kuma noolaan karo Mountain, volcanic area, and here is Gondombaria.
This is a region where even those who go around with camels for oo dad fara badan oo marka hore geel ku haysan jiray siday ugu badbaadaan aad bay u adkayd waliba waqtiyada aad imanaysa ay ku xidhan tahay waqtiga ay markan yimaadeen cid meeshan timid ma jirto waa waqtiyada ay ugu kululayd ninkan wada ayaa sheegay inuu 8 sano meeshan iman jiray laakiin imika waqtigan imika ay tahay waqtiga ugu kululaa markana sida ay markan soo gaarayaan taayiradan meesha lagaga tagay waxay sheegayaan wax ku dhacay inay garaneyn maadaama meesha ugu dhow ee lagu badbaadi karay aad uga fogta dalxiisayaasha halkan imaada badankooda waxay yimaadaan bilaha qabow sida November, December iyo January laakiin aad soo booqato bilaha June, July iyo August halkan mamnuuc ba ka tahay oo dawladda Iran ayaa mamnuucday haddaba markan xaaladdu ay adkaatay ninkii gaadhiga ku waday hagay waxa uu sheegay inta wixii ka dambeeyay inay sii socon karin oo meeshu ay aad u kulushahay We cannot go any further. The stone are black and the temperature is so hot. We stop here. No more further. sidoo kale hortooda marka wadada la sii marayna dhagxaan midmadooya ka buuxa kuwaasoo taayirka qarxin kara sida darteed ninkan waxa uu sheegayaa in inta wixii ka dambeeyaan halkan la dhaafi karin ninkii youtuberkan waxa uu sheegayaa 2 saacadood oo kaliya inay siiyaan si uu xiisa soo duubto waxaanay ku oranayaan adigu kaliya waa tagi kartaa wixii aad soo duubanayso soo duubo laakiin anagu halkan ma dhaafino degdegna uu soo noqay ku oranayaan meeshu waa khatare sababtaas sideen arkayna xataa gaadhiga ay wateen uu ku laaday jinkiisu ninkan wax isku dayay inuu qaboojiyo biyana ayuu ku shubayaa I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here. haddaba markan sidaan ka arkayna maabkiisa ayuu ka tusayaa maabka moobilka halkay joogaan imika iyo weliba halka aanay dhaafi karin sidoo kale meesha uu ninkani doonaya inuu tago oo ah meesha ugu kulul weli may gaadhin sida awgeed halkan ma dhaafin ayuu odhanayaa adigu haddii aad tegayso in yar bay inoo jirtaa meeshii oo taasi tag laakiin iska ilaali waa khatar ayuu ku odhanayaa waayo hawada meesha ka dhacsana aad bay u qallalan tahay waana kulayl waxaa laga yaabaa inay ku leefto wax iskaga dad ayuu ku odhanayaa sidoo kale bahalka yara gacanka ayuu ku odhanayaa sii qaado hadday xaalad degdega kula soo kulanto biyana sii qaado haddii aad biyo cabi weydo jirkaaga markaa biyuhu way ka baxayaan markaad halkaa tagta ayuu ku odhanayaa sida uu ku adkaynaya wuxuu ku odhanayaa sida ugu dhaqsaa badan leh fadlan kusoo noqo meesha waxbaad ku noqon kartaa waayo sida joornalo badan oo adduunka lagu daabacay meeshan xataa digrigeedu waxa uu gaadhaa 80 digrii inkastoo markii ugu dambeysay halka ugu sarreysa lagu sheegay 70 digrii This should be in touch with radio. Yeah, Just sure. one group, yes? Take the radio with yourself and be careful, okay? To be without any, I don't know if it is not reality. ninkanina markan waxa uu sii marinayaa wixii qoraxda ka ilaalinayay sidoo kale wuxuu xidhanayaa maryo qoraxda ka ilaalinaya gaadhigana uu ka degayaa sidaas ayaan ku dhaqaaqayaa sidaan markan aragnana raggii ayuu sii sheegaya wax kastoo ay ku dhacawaan idinla sii hadli doonaa isla marka uu meesha sidaa uga dhaqaaqana wuxuu arkayaaba dhagaxaantan madmadow ee meesha qariyey kuwaasoo haddii aad istiraada gacantaada ku qabaanad ku hayn karin kulayl dartii Oh, it looks like hell. xaggiisa hore markuu eega sidaan arkaynana dhagxaantani waxay sababayaan inay hiid badan soo jiitaan meeshan iyaga kulayl ka sii dhigaya waxaana la moodaaba inuu qiiq ka soo kacaya meesha iyo kulayli meeshan dhir baad jeedaya xataa wax yaroo ku noolaan kara ma jiro geedaynay ka baxaan hadalkooda badaa meeshan wax noola ah oo ku noolaan kara ma jiro sida artikala fara badan laga qoray maadaama ay tahay meesha ugu kulul adduunka marka laga hadlayo gaar ahaan saxaraan marka la eegayo waa meesha ugu kulul weliba ninkani waqtigan uu joogaa waa waqtiga ugu kululaa iyo weliba saacaddii ugu kululeed ee maalinta kowdii doornimo meesha taagan yahay ninkani marka uu istiraado qalabkiisa ninkana dhulka dhigo ee tripodkii raysitay uu dhigo waxa uu sheegayaa in jirkiisa oo dhan uu dareemayo inuu kulayl soo dhex galayba hawada halkan ka dhacaysa waxay la macno tahay dab ololaya oo wejiga kaaga dhacaya xataa intaa uu isku dayay inuu dallaayadan yar uu sito isticmaalo lugaha dhulka kuma hayn karo oo kalba lug ayuu qaadayaa isagoo markana isticmaalaya thermometerkii dhijitaalka uu sitay laakiin gebigiisu mar horkaasi xumaaday ma shaqaynayo This isn't working anyway. It doesn't show anything. iPhone-kiisa waxa uu leeyahay temperature-kiisa waa in hoos loo dhigaa oo errorkan ayuu soo saarayaa markan ugu horeysa bahalka eegay ama uu harka hoostiisa ku eegay 50 digrii ayuu ku dhadhawaa temperature-ku laakiin haddana markuu dalaayada iska qaado meeshana ilaa 30 daqiiqo uu joogo markan temperature-ku waxa uu gaadhay 54 digrii laakiin markii uu meeshan joogay 30 daqiiqo oo kale oo saacad ay gaadhay jirkiisa waxa uu bilaabay inuu gariiraba oo wadna garaaciisa uu kor u kaco Began to tremble. I'm tired. I have no more energy. I have to pause a lot. Water break. The camera got so hot that I can't hold it for 3 seconds without gloves. Everything metal. xataa kamaradii ay siteen raggani way hayn kari waayeen oo ninkii ka duubayay sida imika gacantiisa ina tusiyo way gariiraysaa gacantuna way cascasaatay oo kamarada ayaa ku sababtay markii uu hayay marka dambe galofisiyadii waxaa intaa uu iska saaro ayuu isku dayay inuu bahalka yara ka shaqaysiiya dhijitaalka ahaa kaasoo cabirkiisu markan uu sheegayo 69.5
oo waxa kaliya ka dhiman 0.5 degree temperature-ka ay NASA cabirtay markii ugu sareysay meeshan 70 degree ah iyadoo marka dambe xataa thermometer-kii ay birta afka loo gelinay ciida isaga aan marnaba istaagin isaga laftarkiisu shaqadii joojiyay markana sidan arkana ninkii cameramanka isaga uu adkeysan kar waayay waxaanu leeyahay meesha naga kaxee telefonkiisa iPhone-ka ee uu markii dhulka dhigay galkii ray ku dhagsanaa inuu dhalaalay ayaa la arkayaaba inta wixii ka dambeeyay meesha way iskaga soo dhaqaaqayaan laakiin markay soo socdaan waxay arkayaan wax kale oo ay la yaabaan maadaama meeshan hore loo sheegay wax xayawaan oo ku noolaan kara inaanu jirin laakiin waxay arkayaan jirqaagan kabahooda saaran meeshan markay taagan yihiin ku dhex nool taasoo macnaheedu tahay in wixii hore loo sheegay ee kuwa adduunka wax ka cabira ama artikaladii waxa qoray xayawaan ku noolaan kara ma jiro ay beentooda tahay oo sidaynu arkayno jirqaagan uu ku nool yahay xayawaano kalena laga yaabo inay ku noolaan karaan iyadoo sidoo kale markaad internetka joogto waxyaabo badan oo khuraafaad aad arkayso sida raggan ay sheegayaan intii aanay meesha tegin waxay internetka ka arkeen gawaadhidan lagu sheegay inay dhalaaleen marka la joogo meeshan laakiin gaadhigooda imika markay eegaan wax dhalaalaya ama aaga dhalaalaya kumay arag taasoo iyaduna been noqonaysa ugu dambayntana raggii ayay u imanayaan meeshana way iskaga soo cararayaan iyadoo kulaylkaas intaa wixii ka dambeeyaan loo sii adkeysan karin muuqaalkuna halkaas ayuu ku gabagaboobayaa haddaba saaxiibayaal haddii aad muuqaalkan ka hesheen fadlan like saara sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay oo markii ugu horreysay aadna daawanaysana subscribe-ta noo saar aad baad mahadsantiin